بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. طبعا ولا بك فتوى السلامي ودرسي تأملات قرآنية وكذا خصوصا قادنا waxyaabaha quraanka uu gaarka leeyahay uu kaga duwan yahay afka carabiga maanta waxaan qadana alfarqu bayna diyaar wa daar suu quraanku u cabiray marna waxaa ku imaaday fa asbaxu fi diyaarihim jaatimiin iyo fa asbaxu fi daarihim jaatimiin marka diyaar iyo diyaar maxay kala yihiin marka qoomka wa akhadha alladhina zalamu sayhatu sayhatu fa asbaxu fi diyaarihim jaatimiin iyo fa akhadhatuhum rajfatu fa asbaxu fi daarihim jaatimiin diyaar markii la dhaho marka ayagii oo dhan la isla wada halaagay ayagii oo dhan yaa la isla halaagay oo meesha ay ku wada baaba'een fa asbaxu fi daari markii la dhahana waxay ahayto qayb ayaga kamid ah halaagsantay marka asxaabul ayka laga waday waa laba qoys meel degan ay ahaayeen marka waxaa la cabiray in ayaga dhan la wada halaagay marna waxaa la cabiray dhinac ayaga kamid ah in la halaagay dhinac ayaga kamid ah in la halaagay oo marka diyaar marka macnaha dhul badan ayaga lahaayeen oo halaaga u saameeyay iyo quraanka ka cabiray waxaa kala soo qaadanayna quraanka markii wa kalbuhum basidun diraacihi bil wasid أصحاب الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال marka ilmihi dhalinyarada ahaa ee godka markay gaareen asxaabul kahfi waxaan u gudgudinayna dhanka midigna u jiifaan mar dhanka bidix u jiifaan halka eyga lagu tilmaamo kalbuhum basidun diraacihi lugaha u fidsaday asaga gadgadoonkiisa quraanka marka risaaja laga sameeyay markii la baaray eyga maxaa loo dhahay uu iska fadhiyay lagu fidsaday halka wiilasha godka galana ilaahay uu cabiray marna dhanka midig in loo gadinayo marna dhanka bidix in loo gadinayo u jiifeen markaas la baaray bani aadanka marka haduu hal dhinac kaliya u jiifan sida eyga lugaha u fidsaday jirkooda dhalaali lahaa oo qarxan lahaa lafaha burburi lahaa ayaga meeshaas ku baabi'i lahaa marka saysan jirkooda u burburin oo lafahooda u burburin seedahooda u baabi'in marka marna dhanka midigna u jiifeen marna dhanka bidix u jiifeen halka eyga uu hal dhinac bas u jiif u fadhiyay markuu seexday taana waxaa ku islaamay dad waaweyn oo professor ah ku islaamay marka taasa keentay marka maxay ahayd quraanka sidoo uu cabiray mucjisaadka quraanka uu sheegay sidoo kale alfarqu bayna niswa wan nisaa niswa quraanka uu ku imaaday وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز الآن تراود فتاها يا مريم قنطي يا مريم إن الله اصطفاك وظهرك واصطفاك على نساء العالمين مركا النساء مركا هو النسوة مركا هو جمع امرأة ما لها جمع كان انت ما قبطه جمع إذا نسوة هو ضمر رواية مركا نساء مركا جمع محيها تحاوي نسوة في المدينة عزيز تراود مركا جمع قلة جمع كثرة كريه نساء مركا هو كثرة واحد بدن كنت سنساء نسوة مركا هو وحير كنت سنساء وحير وقال نسوة في المدينة مركا قار كمدة يا واحد عايد كفران بقردي صاف القرآن كعبره تانا مركا مريم waxay ilaahay wuxuu ka doortay dumarka adduunka oo dhan marka nisaa kathra inay haween badan tahay ku tusinaysaa niswan waxay ku tusinaysaa inay dumar yar ay tahay waxaan kala soo qaadanaynaa al awlaad bacda dalaaqi ilmaha sidoo cabiray ilmaha markii waalidka kala tagaan sidoo quraanku u cabiray inay ilmuhu dayacmanin oo ilmaha la ilaaliyo inta gabadha ay barbaarinayso askinuhu ama cidada ay ku jirto askinuhunna min haythu sakantum dajiya meesha adinka aad deegantihiin waa marka gabadhiga la furay laga wadaa يعني هضيعن أو ولي المضلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين إن قاعد لفر بيلك لقى جرى لعناده علمي بيلك يقصوا ورجي لا إلى دجية بس هتجنتهين مركا إنا مركا حتى في رسا هذا حتى أي صنعدين أما أيد نعضي أما أيد يكون أنفع ويسه هذا علمها إن في رسد أو قدرس إن علمي ذكر تربية كساعد يسد كل قال يسد سيد القرآن كبشر أيضا سيد وكلنته ilmaha inaysan aabahood ku diri karin nasabka ilmaha inay ilaaliso udcuuhum liaabaa'ihim ugu yeera ilmaha aabahood walirijaali calayhina markas hadday kala tahaan ilmihii aabahood la iskale ilmada aabahood yaa iskale tarbiyadoodii iyo xanaaniintoodii wax walbaba taana marka ilmaha bacda dalaaq inay xuquuq leeyihiin oon gabadhii lagu canaadin nafaqadii lagu korin lahaa iyo wixii lagu tarbiyan lahaa aan lagu dhimin oo laakiin walaa tansaw alfadla baynakum aayadda kala soo qaadanayna nabiyullaahi ibraahim cifatu nafsi qofka nafsadiisa u ilaalin lahaa markii zinada loogu yeeray ilaahay wuxuu dhahay walaqad hamad bihi wahama biha lawla an ra'a burhana rabbih marka way hamisay asna uu iska qabtay haduusan ahaan maxay ahaato yani haduusan ahaan lahayn qof diin leh oo ilaahay uu dhowray oo xujadii ilaahay tusay marka qof dumar u yeerto iska raaci lahaa laakiin ilaahay burhaan iyo xujo siiyay oo iimaan uu isku celiyo yuu siiyay oo u keenay gabadhan soo hamisay oo soo hunguriyeysay oo
حارانت أصاب بعدكتي إنه يراد قال معاذ الله قال معاذ الله إلهي وكمان قال إنه ربي أحسن ذيك جورا إذا جيسي ونفسنا إلى دقمي إن أنكو جوري حرام مركا إلهي وحوس قفك وحالها مركا إنه ليه إيمان كعلية عفة نفسي قفك محيهد إنه الزنا كله أما حرام كله أما محيهد قال ما حلال هنا من نكاح كو إيمان inuu ku dhaco inuu ka celiyo iimaankaada inuu ka xoog badan yahay wax walba ku xoog badan yahay oo sida nabiga Yuusuf isagoo dhalinyaro ah baahi guur qaba haddana guri qasriya joogo wax walba loo soo bandhigay haddana uu ka istaagay marka burhaanta waa al-iimaan والتقوى والورع قفك إنه اسكو إلاليه نفس الديسة وكتحت إلهي إنه زينة إنه أثر حن لها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بركي للشيء حتى بين قتلين أول شيء ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس التي دحدك ججتا ولا تقربوا ماء زنا marka inay tahay maxaa waaye qaatil nafsi bidoon xarbe qofka inay dilayso cudur u keenayso aafo u keenayso bari waxay ahayd waxa gabadh islaam adag bari gabadha lagu sameeyay ka hareenin iimaanka qofka laga bixiyo markuu xaaraantaas u galo marka taan waxay namaajis raa'ic min alquraan kariim oo cifatu nafsi وإلهنا دنقا بكون سير شيء يعني جنازة أسبابها الوقت كمتها قف إنه حفظ نفتي عريس والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إنه إلاريه تنكر حفظ قصة هود نبي الله هود مكو ورقة أوكي نبي الله سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت بقردة سوء أركي وحكو يري مركا نبي الله سليمان قال سننظر عليه أصدقت أم كنت من الكاذبين وان فيرينينا markii war lagu keeno ama arinku soo wajahdo ina aadan degdegin oo go'aan iska qaadanin oo arintan hubiso oo maxay hada xaqiijiso qaala sanandur asadaqta am warkan inuu ruuyahay in kala aan hubsado oo dhamarka warqadan qaad lagu yiri marka waxa dadka kala dilay oo dadka in jaakum faasiqun binaba in fatabay qofka warka qaado waa faasiq oo quraanku abare marka dad badan waxay ku kala dhimanayaan ama ehel ama waalid dad isdhalay ku kala dhimanayaan qofka inuusan fubsanin hadalka qofka kale u keenay markaas uu marka sanandur xaqiiqso inta hadhow shalay lahayd ama qof muslim dib ku geysan aad dulmin lahayd waxay ahayd war wax ku xad gudbi lahayd marka hore warka inuu run yahay iyo inuu been yahay kala xaqiiqso waa marka idaacadaha laga barto maanta markay idaacada masterka warka ay soo jeedinayso warkan wuxuu ka imaaday xuquuqda waxay ahayd warkan wuxuu ka imaaday meel heblan ka soo qaadanay jaraa'idka muxuu soo qaadanay journal hebel waxaan kala soo xigtay idaacada waxay leedahay aljazeera ka soo xigtay kan kale ka soo xigtay quraanka ku taala marka taxaquq bil qabr hadalka in la hubsado qaala sanandur asadaqta am kunta min alkaadibin marka taas aan ka soo qatmayna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.